halkan waa isgoyska Sanca ee magaalada Muqdisho boqolaal dadweyne oo ka kala yimid degmooyinka dhaca waqooyiga Muqdisho ayaa isugu soo baxay si ay u dibad baxaan waxa uu ka soo bilowday deegaanka Gubadley ee duleedka Muqdisho waxa uu soo maray oo dibad bax kale uga soo biiray dad kale oo ka soo baxay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kadib halkan ay yimaadeen waxayna diidan yihiin muddo kordhinta loo sameeyay dawladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay dibad baxan waxayna ka hadleen ujeedka ay isugu soo baxeen iyo dareenkooda waa lagu wada ogaaday Farmaajo ciidanka qarankuna ma kala tagayaan kuwa qabiilka oo tareebatay xataa wajifadaada ciidanka qaranka ka mid noqonayaan mana la aqbali karo waxa aad samaynayso madaxweyne xilli kugu wareejiyay ee si sharafta leh ku maamusay gurigiisa ayaa toosa ciidan beelad ku soo weerartay Soomaali waxay ku heshiisay dastuuray ku heshiiyeen dastuurkay ku heshiiyeen waa la baalmaray waxaa la keenay muddo kordhin ma jirtaan leenahay mana aqbalayna waxayna diidan tahay sharciga aan ku heshiinay dadka Soomaalina maanta ma rabto burburin iyo dib iyo dictatornimo Soomaaliya waa ka gudubtay muddo kordhinta uu sameystay madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii aan nahay shacabka gobolka Banaadir ma ogolin muddo kordhin ma ogolin dagaal oo Farmaajo horseedayo waxaan ku baaqaynaa oo aan u sheegaynaa hay'adaha dawladda Farmaajo waqtigiisu wuu dhamaaday amarna kama qaadan kartaan ciidanka qaybihiisa kala duwan iyo shuruucda ciidanka meeshuu gaarsiiyay waa aragteen waxaan ku baaqaynaa haddaan nahay shacabka gobolka Banaadir qof kaste oo shacabka gobolka Banaadir ka mid ah iyo ciidamada ganacsatada kulli inaan meel uga soo wada jeesano caawa waxaan u soo baxnay shacabka Soomaaliyeed inay dareenkooda muujiyaan waxay diidan yihiin muddo kororsiga ayay diidan yihiin waxay diidan yihiin extensionka waxay diidan yihiin kalitaliska waxaan taagannahay xilligan la joogo jiiro wax buudhan meesha la yiraahdo qoladii dhehaysa jiiro wax buudhan ma tegi kartiin waxaan leenahay hadda waxaan taagannahay jiiro wax buudhan aan taagannahay waa banaanbaxayna annagoo nabad ah waxaan tegaynaa Sanco waxaan tegaynaa Siinaay waxaan tegaynaa meel walba waxaan tegaynaa ilaa iyo meesha la yiraahdo dalka Daasoon sidoo kale caawa wararku waxa ay sheegayaan in dibad baxyo ay ka socdaan qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho Maxamed Ibrahim Bulbul Universal TV Muqdisho